iyo maamulka degmada saraakiisha sharsare iyo jananada wasiirada xildhibaanada ka tirsan golaha sharci dejinta ee Galmudug qaybaha kala duwan ee bulshada runtii soo dhaweynta diiran ka muuqato maaragtay marxabeyn iyo taageero iyo deegaan intaba waa ka mahad celinaya sida la socotaan waxaan ku soo aadnay xilli deegaankan ka socoto doorashadaasoo mid Soomaaliya kaliya ee indhaha ku hayaan aysan ahayn adduunka indhaha uu ku hayo sida la socotaan dhammaantiin aad ka wareysaan xaalada ugu dambeysay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ee ka hadlaysa doorashada Soomaaliya iyo dadkii runtii dhibaatooyinka muuqda geystay in lala xisaabtami doono waxaan ka midnahay aniga iyo xisbiga aan hogaamiyeyba dadka ugu dhibka badnaay maamulka 5 sano soo jiray runtii oo dhibaatada ugu badan ay ka soo gaartay intaasna waxaan u dirinaynay waxay ahayd dadku inay xor noqdaan ra'yigooda ay cabiraan si dimuqraadi dadkooda ay u doortaan si ay ku jirto maaragtay dadnimo ayagoona cidna u daba fadhinin ay masiirkooda ayahooda ay uga tashadaan taasaan rajaynaynaa fi nihaaya inay guuleysan doonto iyadiina wali hoggaankeedii aan wadnaa oo dadkan iyo deegaankan iyo Soomaaliya inaan ku matalno aan rabnaa oo ay noqdaan dadku dad xor ah ra'yigooda cabiraya danahooda ayaga ka tashakara iyo ayatiinkooda taas waa mid aan runtii taageerada idinka aad ii muujiseen dad badan oo Soomaaliyeed noo muujiyeen ba aan ku haysano jidkaasna hadda Ilaahay yiraahdo waa jidaan hay doono oo marna aanan ka dagaynin cid kasta oo isku dayda inay dalkan ay dadka dhibaato gaarsiisana haddaan maanta la xisaabtamin bari baa la xisaabtamaya hadday Soomaali xisaabtamaysan adduunku baa la xisaabtamaya marka taasna inaan isku baraarujinaa u baahanahay marka waa in mahad celinaya soo dhaweynta waqtiga waa gaaban yahay aad iyo aad daalka iyo wax in ka muuqda runtii aan inkaga tacsiinaya waa maasantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh